shirkan jaraa'id ayaa waxa uu ahaa mid ay si wadajir ah ugu qabteen magaalada London ee dalka Ingiriiska madaxweynaha maamulka Awdal State Mudane Cabdisamed Ibrahim Nageye iyo madaxweyne ku-xigeenka Awdal State Mudane Maxamed Jaamac ayaa waxay kaga hadleen arrimo badan waxayna baaq u direen xukuumadda Somaliland. Bismillahir Rahmanir Rahim. aniga oo Maxamed Jaamac iyo Professor Cabdisamed Ibrahim Nageye oo ah madaxweynaha Awdal State waxaan shirkan jaraa'id maanta u qabanay inaan ka hadalno dhibaato inta badan ka soo laalaabanaysa deegaanada Awdal oo muddo badan oo 10 sano ka badan aan ku celcelinayna inay ummadani noqoto ummad madax bannaan haddii ay ka gudbi weydo marxaladda ah inay u kala badiyaan calaamadaha ay samaysteen beesha dhexe ee xisbiyada ugu yeerayaan ee ummadii kala qaybiyay waxa maalin walba ka dhacda degmada iyo deegaanadeeda dhimasho loo dilo dhalinyar micno badan oo ay sameynayso oo aanan jirin oo cid ka daba tagtaa oo raadisa dhiigga dhalinyartaana ayna jirin waxaan leeyahay inta badan oo la hadlayaa waxa gobolka ragaadiyay ee dib u dhigay waa odayaashaasi waxaan leeyahay dhalinyarta maanta ayaad ugu wanaagsantiin oo ka hadlaysaan jiritaankiina iyo xuquuqdiina laakiin waxaynu u baahanahay inaynu si midnimo ah ugu hoos baxno oo noqono maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedada Soomaaliyeed taladuna ka goodo ummadda reer Awdal oo ay faraha ka qaadaan jabhadda iyo calaamadaha iyagu ugu yeerayaan maamul goboleedada nimanka shaqaalaha ah ee masaakiinta ee Hargeysa laga soo dirayna waxaan leeyahay warmadani aad kala qaybinaysaan ee gambooyinka aad ku kala qaybinaysaan ka daaya ummadan waxay u baahan tahay in aayaheega iyo mustaqbalkeega laga taliyo intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan uga baxayaa Professor Cabdisamed Ibrahim Nageye oo ah madaxweynaha Awdal State kusoo dhawo madaxweyne. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maxamed Jaamac waad mahadsantahay. Maxamed Jaamac waxa weeye madaxweyne ku-xigeenka Awdal State waxa weeye shalay waxa meesha ka dhacay foolxumo weyn waxa ka dhacay bahdilaad waxa ka dhacay dad yaraysi waxa ka dhacay ugaas ummadeed oo ummadda reer Awdal ah oo dhan ugaasa in la yiraahdo dhulkaagi ma tagi kartid dhulkani waxa weeye dhul cid kasta tagto 200 ee wadan ee adduunyada ku nool qof kasta hadduu maanta yiraahdo Boorman tagaya wuu tagi karaa kuwa af Carabi ku hadlaya kuwa af Oromo ku hadlaya kuwa waxay doonaan ku hadlaya qof kasta meesha uu tagi karaa waxa meesha muuqatay ugaaska ummadaasi ee 20 ugaas ka tirsanayeen inuu meesha tagi kari waayo waxa weeye arrimahaana waxa foolxumada iyo bahdilka iyo dhibtaasina waxa wada dad aan dhaqan lahayn oo ah dadka Hargeysaad maamulka ku haya anaga ummadda isaaqa waxba isku ma hayno laakiin nimanka ina bixi iyo ilma adeeradii inta ummadani ay adduunka jirto way la xisaabtami doontaa waana idin hayn doonaa bahdilaada iyo dhibaatadaas ninkan ugaaskana waxaan u sheegayaa ugaas dhulka waa dhiman doontaa waxaad dhiman doontaa adoo xora waxaad dhiman doontaa adoo faras cad fuushan waxaad dhiman doontaa adigoo dhulkaagaasi lagugu sharfayo lagugu soo dhaweynayo waxaan la hadlayaa dhalinyartu waxa weeye waxa idinka difaaci kara maamulka Hargeysa maamulka Awdal State haddaad ku daba feeshaan calaamadeeda sameeysta waxeeda qabsada sharcigeeda iyo nidaamkeeda raaca isku urura hal qolo ayaa tiin qolooyin badan iyo jiliba ma kala tiidana ummad kaliya tiin ummadda reer Awdal baa tiin aabba kaliya wada tirsataan oo aad ka wada timaadeen hadhageysanina beeriqaataha Hargeysa ka imanaya waxaan u sheegay Allah kaloo la hadlayaa nimanka foolxumadan ka shaqeeyay baan la hadlayaa waxa weeye waa la idin xisaabin doonaa maamul kasta wuu dhacaa dadkii u shaqeyn jiray maamulka foosxuule dadkii u shaqeyn jiray way soo hadhaan waa la xisaabiyaa waa la idin xisaabin doonaa waa la idin yaqaana mid baa la idin ogyahay waxa weeye waajibkiina waa la idin marin doonaa insha Allah waxa weeye waxaan markaa leenahay Awdal ha noolaataan leenahay dadkeeduna ilaahay ha sharfaan leenahay hana noolaadaan baan leenahay Maxamed Cabdi Cali Daacad Somali Cable TV London.